waa la daahay waqti dheer oo xasaasiyad leh oo culays lana waa la soo maray. waxaan rabaa inaan salaamo una mahad celiyo dhammaan inta loo doortay marka koowaad aan nagu hambaliyeeyo mas-uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, madaxweyne ku-xigeenka, intii hore loogu doortay mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeennadiisa. sidii uu yidhi guddoomiyihii meeshaan ka hadlay, galmudug saasay ku dhammaystiran tahay. hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas-uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas-uuliyadahaas. waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka galmudug iyo dowladda mas-uuliyadda fulinta leh oo la samayn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba la ysqabto laguna dadaalo galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo. galmudugay dan u noqon doontaa, waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas-uuliyiinta ah hawshaas loo dhiibo. waxaan leeyahay 7 bilood iyo waqti la jira natiijadii kama dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray. inta guulaysata hambalyo, inta laga guulaystay oo sida sharafta leh halkan u soo istaagtay oo hambalyaysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa, iyagana waan u hambalyaynaynaa. waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta basiirkiinnu gacantiinnu ku jiraa. maamulkii hore la sameeyey waa naga xoogaa cuslaaday. waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku goyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen. markaan aan beddelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo waxwada yeelashada, go'aan wada gaarista. madaxda dhammaan intii hore loo doortoo baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dowladda galmudug oo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo, sidii hadda madaxweynuhu halkan ka ballan qaaday, waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin. dhammaan galmudugoo isku duubanna ay hore ugu socoto, inay horumar samayso, asaageed la tartanto. dowladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weydiistaan, mudnaanna ku weydiistaan. aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsan tihiin dhammaan inta qayb ka soo qaadatay oo dhan. waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo mahad celin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya oo markii horena lahaa go'aanka, kadibna in barnaamijkaani fulo intii la doono oo dadaala geliyey iyo in ka badan. waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay galmudug ha guuleeye, allah ha guuleeyo, allah ha guuleeye.